بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغيارتود السلام يا ملك استا جوجتان صاحبكين عبد الحكيم ماستيكو سو دواada walaalayaal muuqaalkan hal sii shargareeyo beeshka youtube ku leeyahay cabdixakiin maastika fadlan soo booqo halkaasaan subscribe-ka like tanoo saar adigoo mahadsan walaalayaal xogaga ahla sunna wal jamaaca oo wado dadaaladii ugu dambeeyey iyo qaabkii ay haddana mar kale kusoo rogaal celin lahaayeen si ay usoo weerar lahaayeen dowlad goboleedka galmudug iyagoo hadda yacni isku aruursanayo magaalada bohol iyagoo halkaasi ay yacni deegaankaasi bohol ay ka wadaan dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey oo ay kusoo rogaal celin lahaayeen waxaa kaloo la sheegay in gurmadyo xoogan oo yacni aada u ballaaran ay heleen oo yacni ay ka heleen isla deegaanada galmudug iyadoo meelo badan yacni halkaasi ay ka heleen ciidamo aada u xoogan oo soo gaaraya deegaanka bohol waxaa kaloo la sheegay in dhanka etoobiya ay ka heleen saanad military oo aada u xoogan oo yacni ay taakuleen yacni halkaasi kasoo gaartay oo dowladda dhinaca etoobiya ooga timid dhanka kaleentana waxaa la sheegayaa in magaalada dowlad goboleedka puntland ayadana ay ka heleen sanad military oo kalenta iyo dhaqaalaba allora waxaa weeye marka waxaan ujeednaa marka in ay weli taagan tahay cududii iyo awoodii ahla sunna wal jamaaca oo ay rogaal celin ay soo sameyn rabto iyadoo hadda wararka qaar ee yacni ay sheegayaan inay ku wajahan yihiinba magaalada dhuusamareeb oo ah caasimad goboleedka galmudug haddaba dhegeyste ama daawade ma aaminsantaha adiga in ahla sunna wal jamaaca ay dowladda tan maanta jirtaa ay awood ku muquunin karto oo ay uga safeyn karto dhulka qoorqoor wuxuu amray in la sii dabagalo oo looga daba tago bohol oo halkaasi laga sii baacsado gabi ahaanba laga suuliyo deegaanada galmudug haddaba suurtagal ma tahay in maanta awooddaas yani ahla sunna ay leeyihiin taageerana ay ka haystaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa aragteen banaanbaxyada muqdisho ka dhacaya magaalooyinka qaar ka dhacaya gobolada ka dhacaya lagu taageerayay ahla sunna wal jamaaca marka bal is dhihi karaa dowladda tan yacni awood bay u sheegan kartaa oo ahla sunna ayay ka taqalusi kartaa xaqiiqatan u malayn maayo taas aniga kulletaba laakiin waxaan dhihi lahay aniga dowladda waa inay wada hadal awood jirto weye marka awood jirto oo muuqato weye marka waa inay yacni wada hadal la gashaa oo si nabadgelya ay wax ku dhamaysaa laakiin xabad xal ma keenayso xabadna waxba maanta yacni dowladda kuma qaban karto marka walaalayaal waxaan sugnaa waa soo rogaal celintii ahla sunna wal jamaaca iyo halkii ay wax ka bilaabi lahaayeen marka waa tawaabashashigii ugu dambeeya ayay ku jiraan asalaamu calaykum waraxmatulah